بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta way bishu tahay 9 maalin Arbacaa bisha Abriilna ay 9 tahay 2025 waxaan munaasabadani kaga hadlaynaa arrin ku saabsan socdaalka la sheegayo inuu Xamse ku imanayo Laascaanood. marka horeysa Laascaanood waxay ka tirsan tahay Somaliland oo gobolada Somaliland ka mid ah oo dhulka Somaliland ka mid ah bini'aadanku wuu iskhilaafaa in isku horimaad iyo dagaal la dhaceen la isku hayo laakiin xalkii nabadeed baa lagu jiraa hawlaha nabadda oo xukuumaddu ay ku hawlan tahay bulshada Somaliland ka war hayso xisbiyada mucaaridkuna ay la socdaan hawl fiican baa socota waxaan u aragnaa socdaalka maanta uu ku imanayo la sheegayo haddii ay suurto gashaba inuu jeedadiisu tahay in lagu kala dhantaalo nabadda iyo walaaltinimada la soo celinayo in lagu kala dhantaalay ujeedadeedu tahay maxaan saa u leenahay waayo Xamse sida ay Soomaalida koonfurtu wax u qaybsatay amba Soomaaliyaba 4.5 ay ku qaybsatay wax isagu wuxuu masilayaa Jubbaland iyo Puntland labada midna ma tegi karo isagoo waliba Jubbaland raggii abaanduulaha ka ahaa wax ka asaasay ah haddana maanta ma tegi karo Puntland iska badaa waxa maanta keenaya Laascaanood waa fidnad aloosid iyo inuu ummadaasi walaalaha ah ee isdhayanaysa ee rabta inay boogaheedii daweyso ee rabta inay wada hadasho ee rabta inay nabad iyo gogol ku wada hadasho wixii la kala tabanayo iyo wixii la kala yeelayaba iyadoo oon qori la isku qaadan in af iyo wada hadal lagu dhamaysto diyaar u ah ayuu doonayaa inuu fidna dhex dhigo oo ku soo duulaya dadka uu soo socdo ee uu imanaya haraad bay u baqteeyaan hadday Soomaalnimo hayso oo jacayl Soomaalnimeed hayo ka gargaaraan dhibaatada biyo la'aanta haysata dhinaca kale horena nabad ugama taageerin dawladda Soomaaliya colaad bay ka hurinayeen maantana colaad bay rabaan inay ka huriyaan waxaan u sheegaynaa bulshada caalamka iyo ummadda afka Soomaalida ku hadasha war fidnada looma baahnee dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta waxay u baahan yihiin wax walaaleeya wax isku soo dhaweeya ninka maanta 30 iyo dhowr sanadood bay dawladdii Soomaaliyeed maqan tahay dhowr iyo 30 sanadood ba dagaal la socda ninka maanta tuulo yar oo ay reere wada degan yihiin biyaha wada cabiyaa Soomaali waxbuu taray Soomaali waxtar baa loo baahan yahay waxyeelo looma baahno fidnada uu halkaa ka aloosayo ee uu Laascaanood u soo waalidayo iyo rasaasta uu soo wado waxaan leenahay beesha caalamku way arkaysaa ummadda Soomaaliyeedna way arkaysaa halkaa wixii ka dhaca Xamse ka mas'uula iyo Xasan Sheekh madaxweynihiisa u ah